kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii fanka iyo fanaanka Soomaaliyeed barnaamijkan fanka iyo fanaanka waxaad dhegaysataan maalin kasta oo Jimcaha saacadu markay tahay 2:00 duhurnimo dibna waxaan ugu soo ragaal celinaa saacadu markay tahay 7:00 fiidnimo isla habeenimada Jimcaha sabdiguna ay soo yeynayso aalaan dhageystayaal waxaan ku soo qaadnaa axwaalaad ku saabsan fanka iyo fanaanka Soomaaliyeed toddobaadkan waxaan barnaamijkeena idinku soo gudbinaynaa Maxamed Axmed Kuluc oo ah fanaan caan oo dalkeena Soomaaliya si wanaagsan looga yaqaano waxaana barnaamijka qayb ka geysanaya Maxamed Faarax Xalan Dhaashane oo taqaanaan bal barnaamijkii ku soo dhawaada waxa aan jecelahay inaan isaga ku soo qaadano xagga fanaannimadiisa fanaanka caanka ah ee aad loo wada yaqaan Maxamed Axmed muddo badan aad kala socoteen raadiyaha amaba riwaayadaha markastaba Maxamed Axmed waxa uu ku dhashay gobolka Togdheer degmada Oodweyne Maxamed haddii aan fikirayno ka sii aniga hadalka jecelina soo gabagabeeyo waxa weeye nin aad iyo aad u hambal ah ee marka aad arkayso oo hortaada fadhiyo ay kaaga muuqanayso inuu yahay xagga fanka inuu jajaban waxaad ka garanaysaa xagga farxadiisa waxa weeyaan nin aad iyo aad meel dhaxaad u ah dhararkiisu marka laga eego waxa aan kale oo lagu garan karaa haddii aad aragto waxa uu leeyahay dhool dahab ah isla markaa waxa weeye Maxamed nin markastaba aad arkayso inuu yahay dadka xagga fannimada u go'ay isla markaana jirkiisu aad ayuu u dhisan yahay oo waxa weeyaan fanaan aan kala daadsanayn ee aad arkayso inuu isku dubaridan yahay haddaba war la qaba xiisama leh bal Maxamed marka ugu horeysa waxaan jeclahay inaan idin weydiiyo annagoo idin soo gudbin doona isaga iyo heesihiisii markii uu fanka isagu ka qayb galay gormaheed Maxamed waxaan ka qayb galay Maxamed oo fanka 54 waayahay Maxamed waxay ila tahay waa lagama maarmaan dadweynaha inaan iyaga marka kan u faa'iideyno waana lagama maarmaan markaleeto in aanu sameeyno codkaaga kii ugu horeeyay iyo waqtiyalka kan hadda ah midka ugu dambeeya oo hadda adigu muddo qaad u dambeeyay ugu horeynta jeceshay ee adiga codkaaga ugu horeeyay aad ku caan baxday ahaa ee dadka maqshinaysa waatay waxa weeye Maxamed codka laga raaxeeyay codkii ugu horeeyay waxa aan ibada qaadi jiray aan karaan ku ah waayahay aad iyo aad waxaad noo muujinaysaa inay raaxayatay marka heesaga kuwa aad iyo aad ugu dhiiran tahay laguguna yaqaan ayuu lagu wada yaqaan kuwaga raaxayay Maxamed Axmed waa kuwa
dhegaystayaal raalli baan naga ahanaysaan waa iska malaynaynaa in dad badan markaan leeyahay ahay maxay u gooyeen may u sikaadiyaan waaya ma dhawa madii isma yeesho ayaa la yiri geeda madi la yiraahdaa isma yeesho maxamed axmed aad ayaan u jeclahay inaad ka bogataan asaga oo waliba waqtiyaalka kan ugu talagalay heesaha kuwa uu soo xulay waxaase aan idin soo xusuusinayaa lama soo koobi karo heesaha u yaala maxamed axmed marka la yiraahdo qolka kaydiska heesaha ee raadiyaha maxamed hees kale loo baahan yahay adoo degdegaya waliba الله هس كله وحوي سيدا جيد علينا وحبوا تقريات انت على صار سيدا جيد علينا راح يما تشيغن يا سميه راح يا سميه حسن آذن هلع الله هلع سميه واي هي سيدا جيد علينا waxa sameeyay baanu maleynaya Ahmed Salaban Biddi nacam waaya sida geed caleen leh iyo Maxamed Ahmed wa erayadii Ahmed Salaban Biddi waana kuwa kan جيد عليني وبحقود كقريين ويقول اللامة عيني بقيستين وبان اسقالي وقنت البدا عليبين سيدا جيد عليلي وبحقود كقريين ويكون اللامة عيني بقيستين هو بانس قادي وقلت المدى عليلي gando do galka faraqa soo daray oo soo gando do galka faraqa soo daray gudan barwaaqa durduraan budhayniyo gacan webi ku yaala gudan barwaaqa durduraan budhayniyo gacan webi ku yaala ongu iyo jiila midab guurin baato ongu iyo jiila midab guurin baato gabadhyahay kalgacalbaan goortaan ku eegaba gabadhyahay kalgacalbaan goortaan ku eegaba qalbigayga gelisa وهاجاك intaasi hayno ka filaato sida geed caleen leh erayadii Ahmed Salaban iyo codkii Maxamed Ahmed waxaan u maleynayaa mar haddii ay noqotay lagama maarmaan inaan heesihii aan had walbaba soo koobno cirgaabo keenno dadkuna aad moodo aad iyo inay markaa u jecel yihiin dhageystaan warka annagoo ka yaraynayna inaan bal isugu daba qabanno si aanay u taban had walbaba heesta aan ka goynay ee ayagu markaas dhagahooda mid kale uga dhacdo teebaad u jeceshahay maxmed waxaa jira waxaad aad ugu mahadnaqaya adigu fanaan weyn oo heesaa ahaa inaad maanta weydiiso wax وهاجاك سيدا أولد بس هسا وصاح ولتي أما أوش على سنة ويا وحن أرلها براروك ويا براروك وحن شاء الله إنه سمي نك اللي يرهدو عبد إيدان عبد إيدان وهاجاك ويا عبد إيدان إيه براروك هدية أنا دي سوق بنو وحن أملينيا إن أيد مركز
iska hilmaami doontaan heesihii aan iyaga idinka bargoynay waana tan ee u diyaar garooba heestii baraarug. waya halka aan joojino haddaba heestii ku magacawneed baraarug erayadii cabdi iidaan codkii maxamed axmed maxamed sida aad la socoto mar kastaba waxaa iyaduna joogta noo ah oon isku ognahay hees kasta qofka sameeyey iyo qofka qaadaya labadoodu waxaad moodaa weliba dhibku inuu sii saaran yahay qofka isagu sameeyey ee isku hawlay weli fari kama qodna waa kusoo fiiraya weli hees kala ahate aye bal hadda wax noola garo wallaahi waxaan kaamisa heesaha ugu dambeeyay hees ka mid ah oo la yiraahdo waxaan ku hayaa haruub caashaqe soo haabo waxaan ku hayaa haruub caashaq hooyo dhan waa haya hooyo dhan waya intaan la saarin haruub caashaq yaa sameeyey horta xasan cabdullaahi xasan gani ha xasan cabdullaahi xasan gani magac laga miskiin maahan waya dhagaystayaal u diyaar garooba sida maxamed axmed uu idinku sheegay haruub caashaq hooyo dhan hadba sidaad u doontaan inkastoo ay haweenkiyo raggu haatan siman yihiin inkastoo ay haweenkiyo raggu haatan siman yihiin haddana ways hundoogno wayska hiidaraadaan hal adayga dumarkuwe haddana ways hundoogno wayska hiidaraacdaan hal adayga dumarkuwe adigoon halkii marine hilinkii aad baratee adigoon halkii marine hilinkii aad baratee
hawrarta dheer iyo hadal wadkii gale haynagu haraadine hawrarta dheer iyo hadal wadkii gale haynagu haraadine adigiyo hankaaguba hoositaad noqotaan adigiyo hankaaguba hoositaad noqotaan danta lama huraan danta lama huraanka danta lama huraanka hareerahaan qabane soo haabo hubba oo kac soo haabo hubba oo kac waxaan ku hayaa madhoob caashaqee hooyo dhan hooyo dhan hooyo dhan waa hagaag haruub caashaq ama hooy oo dhan halkaa ayaynu dhigaynaa intaas inay nooga filaatay na waa aan u malaynaya maxamed bal waxaad horta iiga warantaa waxaad moodaa inaan heesay aada ugu dheeraynayno annagoo aan jecelahay bal inaan xoogaa kala hambaysano waa ku ragaal celin doonaa heesaha haddii aan lidmo keliya waxaan ii sheegtaa adigu fanka in muddo ah ayaad kasoo shaqaynaysay sida la wada ogsoon yahay hase yeeshee waxaana weli ku weydiin waktigaa isaga ah dadka fanka markaa iyaga u go-doomay inteebay la ahkaayeen cadadkooda haddii la eego maxamed oo beriga dadka fanka ku jiray ama fanaaninta ah way ahayd dad yar oo aada u kooban bay ahaayeen sida imika ay u bateen may badnayn isla markaana aad iyo aad baa aad moodi jirtay in qofka fanaanka ama markaas la oran jiray waxa weeyaan kan waa mid rudoobay iyagu ama dhan kastaba aan markaas aad intii aan loo baran soo mahayn sidaas bay dagaal weyn baa la soo galay run ahaantii ha dagaal weyn bay ahayd waxaanad mooday aad iyo aad ay ahayd xataa waqtiyaalkii gobonnimo doonka inta yar ee fanaaniinta ahi inay ahaayeen kuwa ugu halgan dheer amaba intii markaas iyagu ugu dheeraynayay hadday noqoto af iyo adin labaduba taas waa kula gartay weli waxaad moodaa kow ma joogto waxaad heesi horeeto ayaan aada ugu dheeraynay iyo kuwii dambe labadaba waxaa igu maqaala inaad adigu eraya ka tiri xagga shaqaalaha iyo waxyaabaha ay gudaan iyo waxa ay galaan maxay ahayd heestaasi waxaa jirta hees la oran jiray aan ku sheega shaqaaluhu waa haddaad maanta ayadana maqashiiso maxay kula tahay waa waxba kuma jiraan waa hagaag aan ku sheegay shaqaaluhu waa waxaad ula jeeday waa waqtiga kan ilaa iyo waqtiyaalkii loogu talagalay shaqaaluhu inay noqdaan kuwa aad iyagu hawsha u hirgelinaya loona aqoonsaday waxaad ugu talagashay heestaas waan kaa guddoonay dhegaystayaal u diyaar haada aan ku sheegay shaqaaluhu waa ku sheegay shaqaaluhu waa sharafkii dhulka sharaxaysay kuwa shiida cambuude kala shubaye kasoo shaandheeya macdanteed kuwa shiida cambuude kala shubaye kasoo shaandheeya macdanteed kala shiidee u shintiriyeenba meehel ku sharabaye kala shiidee u shintiriyeenba meehel ku sharabaye shaqaaluhu waa sharaftii dhulka sharaxaysay wahada aan ku sheegay shaqaaluhu waa intaa ayaa inoo ka filan halkaas ayaynu dhigaynaa waayo dhagaystayaalka marka kan aad moodo inay usoo hanqaltaagayaan marar badan ayay ka bogan doonaan xagga idaacadda amaba ay horay uga bogteen maxamed haye waxaad moodaa waa daashay waan umalaynaya laakiin fari kama qodna sidaa ku kala arimayno weli waa nala sugaya wogti aad iyo aad ayaa dadku ula socdaan saacadda barnaamijkana way yaqaanin nagana siisanmayaan haddii aan idhahno intaasaan ku joojinay waxay leeyihiin waa sidee waa gaabiyeen labada nin ee meesha isugu tegi waaya hees kale haddii aad keento waayo xaggii caashaqa waxbaad ka tiri xag shaqaale waxbaad ka tiri weli anigu waxaan kaa tabanayaa heeso badan oo waxaa jiray adigu xagga wadaninimada ah hadday noqoto markii gobonnimo doonka kuwii aad ugu tala gashay hees waxaan kaa tabanayaa runta haddii la yidhaahdo
bal adigu aad uga sheekeynayso xagga wadannimada waxay la tahay anigu dhowr goor baan maxamed heesa doortay Hay. adiguna doorkan doorato marka aad doorato heestan aad doonayso waayahay ana markaa aleeyahay inuu dooriya waa lagama maarmaan waa aad baan kugu mahadinaya haddaad aniga ii ogolaatay inaan heesahaagii kula dooro maxay kula tahay haddii aan dadweynaha dhegaha ugu raaridno heesta la yidhaahdo dabka u qaadnay deegta u saaray aad bay ila fiican tahay way ila fiican tahay aad ayaad moodaa in dadka Soomaalida ahi ay markaa ugu guuxayaan waayo xagga wadaninimada ummadda Soomaaliyeed aad bay ugu dheertahay marka dabka u qaadnay deegta u saaray macno weyn baa ku jira way dhageystayaal heestii magacaaneed dabka u qaadnay heestaa xasameeyeen abaahu daargiisa ma wahagaag asaga dib baan ka shidana halkaasaan dhigaynaa dabka u qaadnay deegta u saaray Maxamed Axmed waa kan inaan dushaada nabad ku daaqnon ku deganaanan dabka u qaadnay inaan dushaada nabad ku daaqnon ku deganaanan dabka u qaadnay dabka u qaadnay dabka u qaadno degta u saaray daraada istudsinaayo dafacnaa baan dabka u qaadnay inaan daraada istudsinaayo ku dafacnaa baan dabka u qaadnay dabka u qaadnay dabka u qaadnay degta u saaray waya halkaa aan joojino dalka iyagu dadka iyagu maxamed maxay kula tahay sidaas inaan ku joojino miyay kula tahay maya waxay la tahay maxamed inaynu ku gabagabayno hees anigu aan jeclahay oo la yidhaahdo xurmadaran 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 waxaa moodaa marka la sheegayo waa hadalku waa aad u kakan yahay waxa weeyaan ma jilcib nin gabadh jecel yahay oo xumaysay yara qabanaya waya yaa sameeyay heesta intaynaan sii dayn horta waxaa sameeyey cabdi iidaan cabdi iidaan alaabtiisoo dhan waa waxa uu samaynayo dhan waa hadallo aad iyo aad arkayso inay yihiin xagga caashaqa nin u batay buu noqday ninkaasi waya xurmadaran cabdi iidaan baa sameeyey adaana qaadaya maxaad moodaa inay tahay heesaha aad iyo aad ugu dheertahay sooma waayo heesaha inkastoo la qaado haddana waxaad moodaa in xumaanka laftiisu waa kala doortaa heesihiisa xurmadaran halkaas ayaynan kaga wadaynaa dhegeystayaal waxbayaan xanaaqine markaan soo xusuustay xawalaydanaado ragawada xumayse xiisaha kalkacada ragawada xumayse xiisaha kalkacada sulduubka orodkii intaa
dararina ogwaiga mahaysa dararina ogwaiga mahaysa قالي حمن البايغا وريغي ومانتيو دباتدا حقيقان كنتي نفسي حاول حقيقان كنتي كان حيك فوسري حركة ومدينة ادقاها عركنا لكوبو حريش ادقاها عركنا لكوبو حريش وهذا هذه أيضا محسن محمد سيارها عاد وبلارن هذا اللي مسكنا وش أساسي هذي لقى إيجو حاجة ودني لماذا هيسها أرجو تلاقي شيء هذي لقى إيجو حاجة كل عالكا جود هان تدبا أن سيده هري أن كل شغلي محمد أحمد مدو أيو كسر شقيني فنكا وحنا كمدي أي فنانين تا عاد قوة عن قوة لو يقانو هذي أي نقطة ذلك جوديسة هي دبدا لبضبا اسمه مرهانتا محمد أحمد سيده هري أقول سؤالين وحا وكل شيء gobolka togdheer degmada ood weyne waxaanu ahaa sidii aad muddo badan ba uga dhageysanayseen xagga fanaanimada nin isagu u go'doomay kadib waxbarashadiisii waxa uu isagu ahaa mid ku dhex waday xagga fanka isagoo markaa aan sii dayn waxbarashadii ayuu fanka haddana bartamaha uga dhacay isla markaana waxaad moodaa inuu xaggii fanka markaa u jiitamay maxamed axmed maxamed axmed keliya ma ahan heesaha halka aan idinka maqashinay waxa u yaala qolka heesaha lagu kaydiyo heesa ka badan 104 ama 105 hees sida aan ku xoggalsanay ama aan la socono waxaana weeyaan nin muusigana tuma marka uu doono oo gacantiisa ku tunta erayadana qaada alifa aktar ahaana masraxa marka uu soo taago waxa weeyaan nin aad uga qosliya dadka isla markaana u farxad geliya oo u firfircoon xagga fanaanimadiisa intaas ayaan ku soo gabagabeynaa dhageystayaal barnaamijkii fankay fanaanka Soomaaliyeed waxaana toddobaadkan qayb ka geysanayay oo aad codkiisa maqlayseen maxamed faarax xalan dhaashane waxaana uu lagu qaada dhigay fanaanka Soomaaliyeed caanka ah ee la yiraahdo maxamed axmed kuluc intaan dibba u kulmi doono toddobaadka dambe barnaamij noocan oo kale waxaan ku dhaafayaa aniga iyo farsamayaqaanka barnaamijka xuseen macalin maxamed xuseen yare insha Allah isma dhaafno أهباسك كاترا